suuqa degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waxa uu ka mid yahay suuqyada ugu caansan ee ku yaala magaalada tan Muqdisho waxaana degmada Xamarweyne ku yaala goobo taariikhi ah oo qayb weyn ka qaadan jiray xilliyadii hore horumarka caasimadda goobahaasi ayaa waxaa ka mid ah suuqa weyn lagu iibin jiray dahabka noocyadiisa kala duwan waxaana loo kala soo iibtagi jiray dalalka dariska ah Soomaaliya waxaa hadda ka muuqda suuqa dahablaha burbur ka dhashay dagaaladii dalka ka dhacay waxayna dadka ay qabaan haddii lagu soo celiyo sidii hore suuqa dahablaha laguna sameeyo dayactir fiican isla markaana lagu iibiyo dahabkii lagu iibin jiray in taasi ay qayb weyn ka qaadan doonto horumarka iyo bilicda caasimadda Muqdisho dhismahan waxaa loo yaqaanaa Sargaduuda waxa uu ku yaalaa suuqa degmada Xamarweyne hadda waxaa ka socda dib u dhis uu ku sameynayo maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya maamulka degmada Xamarweyne waxay hore u ahaan jirtay bangi oo dawladdu ay lahayd xilliyadii berisamaadkii waxaana la ii sheegay in inta aan bangiga laga dhisan ay ahayd goob geed weyn ku yaala oo ay ku harsan jireen odayaashii hore waxaana jira dadaalo uu wado maamulka degmada Xamarweyne oo kaashanaya maamulka gobolka Banaadir sidii loogu soo celin lahaa goobahaasi oo dhan bilicdii iyo quruxdii ay lahayd si loo horumariyo bilicda caasimadda magaalada Muqdisho halkan waa barxadda Yaasiin oo ahayd goob ay ka bixi jireen ama laga rari jiray gaadiidka dadweynaha waxay ahayd meel boosteejo ah oo gaadiidka laga rari jiray waxa uu ka shaqayn jiray qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir hadda waa suuq lagu iibiyo qudaarta kabaha alaabada maacuunta waxaana ka dhisan dukaamo yaryar oo si sharci darro ah ugu yaala halkaasi waxaa ka muuqda ciriiri fara badan oo dadka ku ganacsada halkaasi iyo bulshaduba ay ku qabaan dhibaatooyin dhinaca marista wadooyinka qaar ka mid ah ganacsatadii ka ganacsan jiray suuqii hore ee dahablaha oo ka muuqdo burbur aad u baahsan ayaa ka codsanaya maamulka gobolka Banaadir inuu ka shaqeeyo sidii goobahaasi iyo goobo kale oo ka mid ahaa goobihii wax ku oolka ahaa ee xilliyadii hore dib looga soo celiyo sidii ay ahaan jireen waxaan codsanayaa in naxawahay meeshii hore oo dahablaha barxadda Yaasiin oo dhiso oo noola qodqay sidaasaan doonaynaa hadda meelaan fiicinayna joognaa oo dib ku qabno marka sidaasaan doonaynaa Muxubbad Daahir ay muxubbo aan codsanayaa suuqa hore dahablaha oo dhiso haye suuqa hadda tan suu yahay ma burbursan yahay xaaladiisu waa sidee burbursan qudaara lagu gadaa dadaya degan qaarna ka samaysan دائما دابلينا هذا بعليال هم فدنا هذا بعليال هم فدنا صح سوق دابلا مجوب صح ليش كتاب بدل مجوب وبعليها فدنا محمد حكيم محمد أكون على محمد خضر كنت سأدي جد ما أنت ماشي أنا قصور جد محلو كذا كبار لو كذا بس لكن وجهي حاجة تمرده بعد لو كذا ناس نوحة كتقول لكي مدي وأنت وحى وأرن آد مهمة إن ماشوا أن قلت ماشي سيدي هراء كسول عرفتي عاقل محمد بن علي أونسني أو كم ده أضياشي oo u soo joogay taariikh ahaan suuqii hore ee dahablaha Soomaaliya iyo barxadda Yaasiin dhismaha Sargaduuda loo yaqaano ayaa ka sheekeynaya waxa ay ahaayeen goobahaasi iyo waxyaabaha lagu rajawan yahay in lagu soo celiyo sidoodii hore marka ka hadalno barxadda Yaasiin mas'aaladan barxadda saasuwen dukaamankaas oo waaweyn oo saaf u dhisan waxa dhisay Talyaaniga وخلقول ير وحنا السيجي وحنا دم جسي أضياش نخمات كصوماليين خار الأجنبية عين يو لا شغلة صومالي تدخل لجتة هل دكان خار لين خار لولم دكان لين دنا نجسي سي أي بريتو ماساس دكان كاس أو بلد كي لو عمير أهم قدرنا وحول نخدي ذهب لنا قدال عندنا وحوسي نخدي ماشي بابورتا أو كبحان كاران يا حمرويني يو ميلا صوي نخدي عاقل محمد بن علي أونسني oo kamid ahaa odayaashii u soo joogay taariikh ahaan ayaa ka codsaday dawladda Soomaaliya sidii looga soo celin lahaa goobahaasi sidoodii hore si ay u hagaagto bilicda caasimadda magaalada Muqdisho goobahaas waxa ay jirtay maadaama
hadda beel khudaara la geliyaa meelna waa iska xiran yihiin alaabtaa la geliyaa dukaamankiis meeshii lagu shaqaysan lahay meeshii mase biyeedkii dadku ku socon lahay mase dadkii meeshii moodi lahayba dukaamanka dhigtaan dadkii dukaankii waxaa laga dhigta makhasiin in sidii asal ahaa loo soo celiyo maamulka gobolka banaadir ayaa wado olole lagu soo celinayo dhammaan goobihii taariikhiga ahaa ee caasimadda sida jardiinooyinka iyo suuqyada. Muuse Cismaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.